marka koowaad ilaahay baa mahadle inoo suurto geliyey inaynu halkan iskugu nimaadno quruxdaas amni iyo ammaan inagoo ku sugan iyo qarannimo iyo gacmaysqabsi iyo walaalnimo iyo isjacayl inagoo ku sugan inaynu halkan iskugu nimi ilaahaasaa mahadle mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo anigoo ogeysiinta xilli dambe geeyey dhacdooyin muhiim oo kale oo qarankan oo mashquul ku ahaa naga aqbalay inuu mudnaan siiyo xafladan ganacsatada ee sanadlaha rugta ganacsigu qabato inuu nagu soo sharfo oo inoo furo iyadoo culays badani jiray qiimaynta uu hayo ganacsatada iyo ogaanshaha uu ogsoon yahay kaalinta ay ku leeyihiin qaranka dartood aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya waxaan kaloo u mahadnaqayaa wasiirada wada shaqaynta dhow ee joogtada aanu leenahay wasiirka ganacsigu kow ka yahay nagu kormeerayay hirgelinta dhacdadan aanu ka wada soconnay wada shaqaynta wanaagsan ay naga dhaxayso aynu la daadihinayay camalkanna aad iyo aad baan ugu mahadnaqay waxaan u mahadnaqayaa sharikadaha dhacdadan la'aantooda aanay suurto gasheen ee martigeliyey muhiimadda looga jeedo dhacdadan ee ay u leedahay qaranka somalilan iyadoo fara badan maadaama madashu ay muxuuha iyo waktiguba ay koogayin madaxweynihii la fadhiyo saddex qodob oo keliya aan ku soo koobo mudane madaxweyne dhacdada kow sida xeerka rugta ganacsigu dhigayo 39kii marka dalka asaasisay waxa weeye rugta ganacsigu hay'adaha ugu da'weyn ee qarankan uu leeyahay 39kii baa la aasaasay waxa looga jeeday kow dhacdooyinkan inay bulshadu iskugu timaado isku dhex gasho waxa xusub midan dhacdadatii ka horeysay celcelis muwaadiniinta soo booqday maalintii waxay ahaayeen 2500 oo ka yimi gobolada dalka dhammaantood caasimadda ha u bataan isbarashaa ka dhacday muxuuha arrin aad u wanaagsan arrinta culayska intaa leego nabadgelyo ku dhacay arrin weyn oo muhiimadiisa leh oo qarankana karaamo iyo sharaf weeyaan marka isbarasho bulshada dhexdooda ayaa ka dhacday gobolada looga yimaado carwada arrinta kale waxa weeyaan dhiirigelin iyo suuqayn bay u tahay ganacsatada somalilan in madasha loo sameeyo si ay ugu soo bandhigaan waxay muwaadiniinta u diyaariyeen waliba si gaar ahaaneed waxaanu runtii priority-ga koowaad iyo labaadba saddexaad oo leh waxa somalilan maydha ama wax soo saara ama fikrada ama adeega ama aqoon ee lagu soo dhigayo dhacdadan ayaa si gaar ahaaneed mudnaan dhacdadan ugu leh maadaama laakiin arrintaasu kategorigaas waliba uu wali kooban yahay korayana ganacsatada kalena iyagana waxaan u ogolaanaa waxay muwaadiniintooda u keeneen oo soo fadhiyeen waxaan soosinaya ganacsatada ama intaa leeg idinku yeelay oo wixii aad kaga siinayseen dukaankiina wax ka jaban ku helayaan arrintaas wayna ceeboobin umanay dhicin waa sida ugu badan hadii kale dadkeedu waa jira lama khiyaamayn karo ninka shiraahada waa buuqaas dadka badan wixii uu sidoo yahay waa la isu sheegaya waa la ogaanaya anagu xukuumadii ma nino talaabo sharci ah qaadayna ma oranayno laakiin ninka sida ayaa la dhacdada waxmaynaya kalsoonideedana waa weynaya hal ka helo qiimo dhimistii aynu ballan qaadnay oo muwaadiniintu ay ka marxad furaan caasimad ahaan farxad weyn bay noo tahay in lagu qabto cawadii sideedaad Hargeysa taasoo madaxweynuhuna insha Allah taala inoo furayo ganacsatada waxaan leeyahay fursad bay u tahay in la ogaado ganacsiga aad soo bandhigteen khaasatan waxaan u go'o tilmaamayaa shirkadaha gaas iibiya oo deegaanka wax weyn ka taraya waxaan leeyahay la dhiirigeliyo iyaguna qiimaha xoogga u jiriyaan dadkuna xoogga u islaan si dhuxusha loo yareeyo
waxaa sharaf weydiiya anigoo ku hadlaya magaca ganacsatada qaranka Soomaaliland kuwaas oo aan lafdhabarta dhaqaalaheena in xafladan maanta aan isku imanay ay suurta gasho waxaan aad ugu mahadnaqayaa kuwa suurta geliyay waayo dadku waxa weeyaan inta dadaal bay keentaa inta dadaalkii garabka la qabto waxaa sharaf noo ah madaxweyne ganacsatada iyo wasaaradda ganacsiga cilada iyadoo jiri jiray way ka baxeen aad iyo aad baan isku dhownahay madaxweyne adigoo waqtigaad loo dayiq yahay arrintani oo arrin muhiim ah oo caalamiyan ah runta ganacsiga moogtahay xafla exhibitionska ay qabanaysaa noocan yahay ay yihiin kuwa qaran kasta u muhiima adigoo kala dayiqaya ogolaashiyaha naga ogolaatay in aad arrinta nagala soo qayb gasho ogolaashahaadu waa dhiirigelin waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa marti sharafta inagala soo qayb gashay carwadan ee ugu horeeyo wakiilka jamhuuriyadda jabuutiyada walalaha raaxaysa xilkooda ee uu ka mid yahay wakiilka EU-da iyo wixii kale ajaanib ahayd inagala soo qayb galay xafladan waa mahadnaqaynaa waana la soo dhowey xafladan muhiimadeeda waa la sheegay ganacsatadu halkay dalka ka jiraana waa la sheegay oo waynu wada ogolahay waxaan doonaynaa inay dhowr qodob isla ego marka hore dalku guud ahaan waa nabad baa lagu koraa nabad baa hore lagu koraa gudaiyadooda waa jaalalkeenna iyo caalamka nabad baynu la wada nahay cidda dagaal lagama dhexeeyo waraabtinimo iyo wada noolaansho iyo iskaashigeenu jaararka badan leh gudaheennana nabad buuxdaa maanta ka jirta laba dhibaato oo khilaafyo beela ah oo midda ay ka jirtay koonfurta maasaxaano degna sanaa ceelaf weyn labaduba xal nabadgeliyo oo waara gabagabadoodii ayay ku soo dhammaadeen arrintastoo dadkii nabadaynteeda ka qayb galay oo dalalka jaarka qaarkood ka soo qaybgalaya meelo badan way soo gabagabowday midaha kala socotaan waftigii Somaliland ee odayaasha ahaa ee ka qayb galayna Hargeysa ayay ku soo beegayeen labada jeer soo socota iyagoo oo nabadii iyo ilaalinteedii u wada noqonayso waa ku guuladana wala soo dhaweyn Thank you.